Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ku nool deegaanka Samakaab oo hilaadii dhinaca galbeed ka xigta magaalada Laascaanood ilaa iyo 35 kiiloomitir ayaa ka hadlay xaaladaha nabadgelyo ee ka jiray magaalada Laascaanood iyo waliba dhibaatooyinkii baahsan ee ka dhacay ee mudaharaadada watay. Odayaashan iyo dhalinyaradan ayaana ugu baaqay bulshada inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaana ay taageereen khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu kaga hadlay xaaladaha nabadgelyo ee gobolka ka jira. shirka yaga jaraa'id wuxuu daaran yahay maanta nabadgelyo tuula Samakaab hadii aanu nahay beelweynta jaamac siyaad shirka yaga wuxuu daaran yahay nabadgelyo annagu colaad mana aanu talina mayno colaadana ninka ku degdega wax kaba taro ninka nabad xejiya colaadana wax ka tara hadaan hore uga sii yar dhaqaaqo waxaan u sheegayaa waxa la yiri kabtu faygay ka ilaataa hadalka markaan leeyahay ninkii fahmaya uu fahmaya waxa la dagaalku waa weerar ku daaciyo weerar ku daal odayaal taaban maayo guddi taaban maayo waxaan ka hadlayaa wax if iyo aakhiraba ii wacan oo geeridayda iyo noloshaydaba u wacan oo aakhiradayda u wacan oo wixii iga tala qaadanaya u wacan qofowna han lagu soo habsaamin yaynan gelin waxaan u mahad celinayaa dawladda Somaliland oo arintii halka ka dhacday si wanaagsan ka yeeshay banaankana uga baxday garaadaduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa isaabta ay tahay haday gobolkoodii isugu yimaadeen gogol la dhigeen waliba garaadka iyagu garaad jaamac garaad Ismaaciil uu gogosha dhigay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay garaadku iyaguna wuxuu gogosha u dhigayay in nabadgelyo laga tashado arrimaha gobolka nabadgelyo looga tashado buu garaadku iyagu gogosha u dhigay dhibaatay dagaal uma dhigin dhulmaantana maanta uu ka tashado ayahiisa dawladda Somaliland lala xisaabtamo oo wax lala qaybsado oo arintii halka ah wada hadal dawladda lala yeesho wixii tabasha gobolka wixii ka dhacay ee shaqaaqa ahaa ee gobolka ka dhacay ama ku dhintay laga wada hadlo wax qaybna laga wada hadlo dawladduna waxaan u maleeyaa maanta diyaar bay u tahay arintaas madaxweynuhu uu ka hadlay cid kasto siyaasi oo dawladda ku jirta way ka hadashay wax qayb iyo wada hadal gacmo furan nabad baanu ku baaqnay nabad baanu doonaynaa dagaal ma galayno laakiin wixii wada hadal ee tabasha diyaar baanu nahay in dawladda la wada hadlo arrimii shirkuna hadda horto waxa muddo inuu dhinac kale u yar leexday marka oo si arrimaha adigu koonfurniga yimi ay u yar leexatay marka waxa weeyaan arrimahaas cid la khaldiyaa ma jirto Somaliland iyada waddanka ka talisa iyada dawladda Somaliland waxa weeyaan waxbaan la qaybsanaa waxbaan la leenaa waxaan kale u mahad celinayaa oo General Mahad Cambaashe oo isaguna go'aan muhiim ah qaatay isna waa u mahad celinayaa ku hadlaya afka dhalinyarada deegaanka Tuulo Samakaab maanta warsaxaafadeedkan waxaan u qabanay inaanu nabadgelyada guud ee gobolka baaq ka soo saarno baaqaas oo daaran nabadgelyadu waxay dan u tahay iyo cid aad ugu jirto qof waliba uu garanaya noolaha dhan bay dan ugu jirtaa dadkan maanta colaadaha iyo rabshadaha ku baaqaya waa dad arrimo ganacsi oo muhiim ah aan ognahay doonaya inay kaga hadlaan oo masiirka aan dadka iyo ka nabadgelyada iyo ka gobolka midna ka hadlay sidaa darteed annaga dad ganacsi laga dhigto oo lagu gorgortamo ma nihiin dadka iyagu nabad buu doonayaa nabad baanu diyaar u nahay Somaliland baanu nahay gobolka Somaliland yahay waa la ogyahay Jamhuuriyadda Somaliland wixii naga maqnaan wada hadal ku dhameysano diyaar baanu nahay iyana diyaar buu tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland baa sheegay maanta shirka anagu maalintii hore garaadku soo dhigay waa la ogaa laakiin maanta waxa muuqata kiisaskii madaxweynuhu sheegay ee dadkii gobolka lagu leyn jiray in majar hawaamintooda inaan la soo bandhigin la rabo kuwii maanta marka la soo bandhigo in la babco leeyahay Somaliland lala hadli maayo waxaan u arkanaa in wixii dadka la laayay garab la siinayo saasana meesha nooga muuqata cid baqdin uga baxday ma jirto waxa looga baxay oo ciidamada kale uga baxeen oo ciidamada Somaliland ku jira dhul baanta uga baxeen waxa weeye wax ixtiraam garaadada ee baqdin ee cid kaga baqayeen ma aha Cabdiqani Xasan Faarax warbaahinta qaranka Somaliland Laascaanood.